كانوا ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa lagu qabtay degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho waxaana kulanka looga hadlay sidii maamulada degmooyinka iyo shacabku way iskaga kaashan lahaayeen sugidda amniga iyo ciribtirka shakhsiyaadka ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ee dhibaatada u geysta shacabka Soomaaliyeed dadweynihii ka soo qayb galay kulankan ayaa muujiyay baahida ay u qabaan nabadda iyagoo wacd ku maray inay gacan ka sii doonaan ciidamada amniga sugidda amniga magaalada Muqdisho isla markaana farta ay ku fiiqi doonaan meelaha ay ku dhuumaleysanayaan raadiga maleeshiyaadka al-shabaab qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka ee ka soo qayb galay kulankan oo koobta ka hadlay ayaa waxa ay tilmaameen inay mudnaanta koowaad ay sii doonaan sugidda amniga iyagoo ku amaanan shacabka ku nool gobolka Banaadir sida ay u fahmeen qiimaha ay leedahay nabadda isla markaana ay ula shaqeeyaan maamulada degmooyinka iyo hay'adaha amniga inaan maaragtay gobolka Banaadir degmooyinku ku gooban yahay wareegaan oo kale degmooyinka degmada nooga horeysay kuwana way nooga dambeeyaan shantan degmo inay maaragtay dagaal cusub la galo dagaalkaas oo ku wajahan in lala dagaalamo kuwa noloshayna ka soo horjeeda nooc kasta ay noqdaan kan waxa jiraayo iyo kan waxa dhacayo iyo kan waxa dhibaataynayo kulli waa nolosha bini'aadamka ka soo horjeeda marka inaan u duubano ama u istaagno in hadda dagaal cusub oo la dagaalamayno kuwa ka soo horjeedo horumarkeena iyo sharafteena iyo farxadeena kulli sidii muuqata amniga lama haysan muddo koob meesha la isku imaayay amniga oo fiican kulli isu sheegayno hadda goobta waxa la isku yimid waxa ugu badan in la cirib jaro wax yarka oo ku hara xaafadaha oo shabaab leeyahay cabsida in cabsigeeda la digaliyo ma aha intaanoo hadda ummadaha meeshaan isugu tiray in badan oo ka maqan hal qof iyo hal camil oo bamba amba tuura amba soorada wata in looga cabsado ma aha sharaftu waxay ku jirtaa in la iska celiso ilmaha yararka la iska qabto gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ugu dambeyntii kulanka ka hadlay ayaa ugu baaqay shacabka ku nool magaalada Muqdisho inay soo sheegaan meelaha ay ku dhuumaleysanayaan raadiga maleeshiyaadka al-shabaab waxaa loo baahan yahay degmo kasta in ay is abaabusho waxaa la rabaa gurigaaga adoo jooga markaad dareentid inuu qof soo galay ziyaadaha ama qof dadka dhibaya uu soo galay in aad taleefanka qabsatid eed wacdid qofkaad taqaanidaad wanaag ku og tahay ilaa degmadu dad badan oo wanaagsan baa ka buuxa qofkaad wanaag ku og tahay inaad wacdid tiraahid gurigaas ayay soo galeen kuwii nabadiidka ah qofkiina wuxuu soo wacahayaa qof kale uu wanaag ku ogyahay waxaa jirta degmooyin ma rabo inaan sheego ilaahayna u saa'idiya amniga degmooyin wada amni haysta maxay amni ku noqdeen waxay amni ku noqdeen ayaga is ilaalinaya degmada is ilaalinaysa war qofkaasaa soo galay gudoomiyaha loo soo diraya askar orday isugu geynaya qofkii baa la qabanay kulankan mid la mid ah ayaa dhawaan ka dhacay degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho